daawada qaybtan waa qayb saddexaad wararkii horfadhi media dunida oo dhan daawada qiimaha leh warar iyo wacalo xooggan ayaa idin haya wararkii ugu dambeeyay dunida warbixin dhinaca Cabdulaasiyaad madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna waxa uu ku dhawaaqay inuu heshiis la galay isla markaana uu soo dhamaaday isjiidka u dhaxeeyay isaga iyo hay'adda M3M loo yaqaano ee soo saarta alaabaha afka lagu jeebto iyo kuwa qalitaanka lagu galay dalka Mareykanka ayadoo madaxweynaha dalka Mareykanka goor horeysay uu adeegsaday sharciga difaaca ee Defense Production Act ayaa waxa uu dalbaday in la soo saaro qalabka ay ugu horeeyaan N95S kaasoo ay dhaqaatiirta iyo kuwa markaasi kalkaaliyaashoodu ay iskaga difaacaan xanuunada kolka ay markaasi la tacaalayaan dadka buka madaxweynaha dalka Mareykanka oo markaasi meel marsaday sharciga la boodista iyo awoodda dhinaca difaaca meelmarintooda taasoo sahlaysa inuu farageliyo markaasi hantida gaarka loo leeyahay dalku haddii uu xaaladiisu ay darsato ayaa waxa uu sheegay in haatan iyaga iyo 3M ay wada hadalkoodu uu ku dhamaaday gul wuxuu madaxa guud ee 3M waxa uu noqday nin wanaagsan kadib markii hore ay isku jireen madaxa howlgelinta qorshaha difaaca ee wax soo saarista heerka difaaca ee markaasi la adeegsado Peter Navarro kaasoo isku dhaceen ayaa la yiri ninka shirkadaasi madaxda ka ah oo isfahmiga u daayeen dhowr jeerna ku eedeeyay inuu u dhaqmayo waxa eedeynaya ninka aqalka cad ka socda ayaa ku eedeynaya madaxa guud ee 3M Mike Roman inuu u dhaqmayo sidii dalgooniya hayaa haatan waxay sheegeen in shirkadda ku taala Minnesota ugu dambeyntii heshiiska u dhacay waxaan ku heshiinay ayuu madaxweyne Donald Trump inay bishiiba soo saaraan 5 milyan iyo 500 oo kun oo tayo sare leh oo qalabka N95S ka loo yaqaano ee afka lagu duubto ee dhaqaatiirtu qaataan iyo kan kale la isku jeebo ayuu sheegay waxaana uu sheegay in uu naawilayo in bilooyin gudahood ay ku soo saaraan in ka badan 166 iyo 566 milyan iyo 500 oo kun oo markaas afjeebasho waxa uu yiri tan waxay noqotay ayuu yiri in ay u shaqeynayaan si la yaab leh waxay sheegeen inay shaqaalahooda dhamaantood ay dalbadeen inay saacadaha u kordhiyeen inay shaqooyin kale iyo shaqaale kale hawlgeliyeen iyo in ay taasoo binayaan madaxa guud ee shirkadaasi 3M Mike Roman ayaa waxa uu yiri waxa aanu ku dadaalanaa in aanu xaq qabtirno dalka Mareykanka hadana aan u gudubno dalalka kale waxa uu sheegay inay tan noqon doonto mid kamid ah talaabooyinka taariikhiga ah ee shirkadiisu ay sameeyso kolka ay timaado u diyaar garowga la tacaalista in markaasi xanuunka afka laga jeebto Trump ayaa sheegay in inta badan laga qabtiri doono qalabkan dadka uu ku tilmaamay inay furinta hore ku jiraan ee xanuunka la dirayaan halka nagala saataan wararkii wacalaha dhinaca Cabdulaasiyaad ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna waxa uu digniintii ka wadameysa u diray isla markaana uu sheegay in uu gacanta ku hayo uu qorayo cunaqabatayno kamid noqon doona kii ugu horeeyay in dhaweeto ama abid uu Mareykanku saaro dalka Saudi Arabia waxa arrintan ay timid kadib markii shirkii la isku fahmi diiday laguna kala kacay in la isugu yimaado ama lagu beeshay waa inuu shirka qabsoomo kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia oo ninka la yiraahdo Amir Faisal bin Farhan uu sheegay in hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ee ahaa in Sacuudigu ay ayagu ka dameeyaan dhibaatadan hadeerto dhinaca dhaqaalaha iyo burburka ku timid ay ahaa hadal gaf ah oo markaasi aan meel mar u noqon karin dalkiisana cuntami doonin laakiin Trump oo asagoo madaxweyne ku dhacay marka ay timaado arrimaha go'aan qaadashada noocan oo kale ayaa waxa uu sheegay in intuu isku soo dhaweey karayay labada dal isku soo dhaweeyay marbana ayayo tamayaan si daraadeedna wuxuu u sheegay ama labada dalba ugu niyad qaboojiyay inay u diyaar garoobaan wax talaabooyin ku tilmaamayo inuu Mareykanku qaadi doono way diideen Soomaha inay heshiiyaan oo way diideen inay ayagu dhameystaan hadaba waxaan qaadi doonaa ayuu yiri talaabooyin ay ka mid tahay cashuur iyo cunaqabatayno wuxuu yiri wax ku oola oo labadooda saaro taas waxa uu yiri wacad baan ku marayaa buu inaan taa ku sameeyo wuxuu intaas ku daray in ujeedka taa u sameeynaya waa maxay waxaan badbaadinayaa shirkadaha saliidda ee qaranka Mareykanka ayuu yiri madaxweyne Trump waxa kale oo uu sheegay in labada dal ay midkutaaggoodu uu markaasi dhibaateeyay oo masiibo xooggan u geystay shirkadahooda fadhiya gobolka Texas si daraadeedna la joogo waqtigii isaguna uu argos lahaa wargeyska arrimaha dhaqaalaha ka faalooday The Financial Times la yiraahdo waxa uu sheegay in dawladda dalka Canada iyaduna sidoo kale ay soo jeedisay in cunaqabatayno labada dalba ay saarayso wasiirka tabarta dalka Canada ayaa waxa uu sheegay The Times in ay joogaan xilligii ayaguna ay saasoo kala sameeyay lahayn dalalka OPEC Plus isugu yeeray waxa ay doonayaan inay burburiyaan dhaqaalaha saliidda ee dalalka Canada iyo Mareykanka سادرادد waxaanu la hadalay saaxiibadayada Mareykanka waxaanu ku heshiinay in labada dalba sanduulin ayaa uu sheegay wargeyska asagoo xiganaya wasiirka wasaaradda markaasi oo asaguna sheegay inay diyaarinayaan cunaqabatayno iyo waliba
waxa loo yaqaan markaas cashuur xad dhaaf oo iska cunaqabatayn oo kale weey waayo cashuurta hadii la yiraahdo boqolkiiba 50 boqolkiiba 55 baa lagu saaraya waa cunaqabatayn afkii uu laga duwayo dhanka kale se dawladda dalkaasi Saudi Arabia waxa ay sheegtay in burburka shirka ku yimid uu mas'uul ka yahay Mr Putin waxa uu ka dameeyay shirka kadib markii uu eedaynta oo dhan Saudi Arabia dusha ka saaray saliid ayaa sii liicday kadib markii dunidu iyo suuqyadu ay ku furmeen in shirkii burburay taasoo la sheegay in iyadoo marka hore foostadu waxay marisay $27 waa foostada ceedin ee shidaalka iyo 93 filis ayay marisay kadibna waxay hoos ugu dhacday $25 28 filis kali ayay hoos ugu soo ciirtay taasoo Mareykanka ka caraysisay raadiyaha la Radio Free Europe ayaa waxa uu sheegay in ayagoo soo xiganaya aqalka gaduudan ee dalka dalkaasi Kremlinka la yiraahdo dalkaasi Russia in ay dawladda dalkaasi Russia diyaar u ahayd inay 10 milyan oo foosto ay maalintii goyso ama ay yarayso halka nagala socotaan wararkii waxa dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan daawadayaal qodobo kale iyo warbixino way beenoo soo socda daawashana qiimaha leh dabcan horta bal aan eego dalalka Afrika waxa ka taagan cara aad u weyn hadalkii ka soo yeeray saynisyahanada dalka la yiraahdo dabcan Faransiiska ayaa wali sii xoogeysanaya dadkuna aad uga caraysay waxaana carada ka sii darsaday kadib markii dalka Faransiisku uu diiday in ay xilka ka cayriyaan gaar ahaan labada nin ee maxadka daraasaadka iyo cilmi baarista ee dalkaasi Faransiiska madaxda ka ah in shaqada laga buriyo ayaa arintoodii ay sii darsatay waxaana wali saf ku soo jiraya dadka doonaya arintaas inay ka jawaabaan waxay dadkii ugu dambeeyay arintaas ka jawaabay ayaa waxa ugu horeeya inta badan xubnaha Faransiiska ku hadla ee ciyaara ninka xidiga reer Senegal ee la yiraahdo Demba Ba ayaa waxa uu ku tilmaamay waxa ay sameynayaan in ay tahay akhlaaq xumo doqonnimo iyo cunsuriyad meeshii ugu sareeyay iyo iska sareysiin aadanaha inta kale wuxuuna yiri ku soo dhawaada ayuu dunida galbeedka waa meel ay dadka cad ay aaminsan yihiin ayuu yiri inay dunida kale iyo dad kale ka sareeyaan taasoo ah doqonnimo iyo wuxuu ku tilmaamay doqonnimadii oo wax caadi ka noqotay ayuu yiri halkaasi waxaana wali u haystaan ayuu yiri in waqtigoodii kor u socdo macnaha xilliga ay kor u soconayeen in wali kor u socdo ayuu yiri Mr Pa dhanka kalena Samuel Eto'o oo asaguna reer Cameroon ciyaaryahanka caanka ah wada garanaysan ayaa asaguna waxa uu sheegay in ay dhaqan xumada ka socota Europe ay tahay ayuu yiri waali cunsuriyaduna waxa weeye qofku marka uu dad u diido jir ahaan diin ahaan dhaqan ahaan ama jiritaan ahaan ayuu sheegay dhanka kalena ninka markaasi dabcan hogaamiye shirkadda hay'adda caafimaadka adduunka WHO ee reer Ethiopiaanka u dhashay wasiirka hore arrimaha dibadda Ethiopia waxa jiray Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa isaguna waxa uu u isticmaalay eray bixintii ugu adkayd uu ku difaacay qaaradiis Afrika ma noqon doonto mana aha meel dhul buuri ama goob buuri lagu tijaabiyo wuxuu yiri markaasi talaalada ama goob talaaleed ayuu yiri wuxuu yiri haddii ay noqoto arintu in talaal la tijaabiyo Yurub lagu tijaabinayaa wuxuu sheegay in haddii ay tahay meesha ay ku tijaabinayso ayagu ay go'aan ka gaarayso wuxuuna sheegay in aysan noqon karin in Afrika laga dhigto taas wuxuu ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray ninka labada nin ee maxadka daraasaadka heer qaran ee the National Institute of Health and Medical Research la yiraahdo INSERM ee dalkaasi la yiraahdo Francisco u sareeya Dr. Nicola la yiraahdo Kamel Lodge iyo Dr. Jean Paul Mira ay yihiin gif iyo khalad ay ah ayuu sheegay horfar media waxaan malay maalin dhawtay ay ahayd markaan idilaha hadal waxa laga qoray olole doonay xilka laga qaado Tedros waanigi waxaan aad waa in loo hiiliyaa markaas oo kale fiiri waa common sense waxyaalaha common interest baa naga dhaxeeya macnaha andho waxa naga dhaxeeya dan guud baa naga dhaxaysa waa tan Afrikanimada hadda uu ku difaacayo Afrikada lagu tijaabinayo Soomaaliya way noqon kartaa moogti Afrika qaarad baa laga hadlayaa dad gaar ah lagama hadal dadkii Soomaalida qaarkood Carab isku yaqaanaan laakiin hadaynu Carabna hore ka soo qaad waxa laga hadlayaa waa qaaradda sidaa daraadeed marka ay noqoto Afrikanimadu bariyahan way fiican tahay dadkana aad bay yani ama midowga Afrika hogaamiyaashu dadka ka xun laakiin dad yowgu aad bay u fahansan yihiin sidaa daraadeed waxa uu sheegay in dawladda dalkaasi Faransiiska laga doonayo in arrintaas xal ka bixiso dawladda Faransiiska marka laga reebo safaaradeeda magaalada ku taal dalka ku taal South Africa ayaa ilaahay hadda kaliya ka hadashay laakiin dawladda dalkaasi France raali gelin buuxda way diideen ka bixiso sidoo kale labada qof in shaqada laga buriyo
waa la diiday oo arrintaasi shaqada looga bariyo. Faransiisku waa dalka dhaqaalaha ugu badan ka sameeya qaaradda Afrika, waxaana 80% in ka badan hantidooda dalalka galbeedka ku yaala Afrika uu yaala dhaqaalahoodu dalkaasi magaalada xarunta u ah Paris la yiraahdo, waxaana loo yaqaanaa in dhaqaale ahaan ay gumaysi ku jiraan dalalkaasi weli. halka nagala socotaan waan wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan gaandiro oo dhan daawasha qiimaha leh ayada oo in badan aad maqlayseen dadka waaweyn ee waayeelka xanuunka hadduu ku dhaco waa ay la sakraadaan ama se waa maartay halis bay ku jiraan inta aad maqasheen. qofkii ugu weynaa ee la diiwaan geliyay warbaahinta loo ogolaaday inay duubto ayaa xanuun ka soo raystay. 95 jir u dhashay dalka Turkiga ayaa sacab loo tumay kadib markii cisbitaalka laga saaray ayadoo oo la sheegay inuu xanuunka ka adkaaday. Ilaahay baa uga sahlay dabcan, laakiin sidaas waxaa sheegay cisbitaalka magaalada la yiraahdo Izmir ee dalkaasi Turkiga. Ismaaciil Kirdar waxaa laga xanuunka uu kaga soo dhacay xarun dadka waaweyn lagu daryeelo oo ku taala magaaladaas, kadibna waxaa la dhigay cisbitaalka la yiraahdo Katiib Selefert University at Turkey Training and Research Hospital kaasoo laga soo saaray. kadibna waxaa la arkayay dadka kalkaaliyaasha oo ku riixaya gaariga yar ee wheelchairka afka qalaad lagu yiraahdo, gaariga yar dadka lagu caawiyo kariyoonaha oo markaasi sacab u garaacaya. afayeen u hadashay cisbitaalka ayaa tiri adeer Ismaaciil waxa uu ka bursaday xanuunka coronavirus, waxaana uu noqday mid kamid ah dadka xanuunkaasi ka taqalusay. isagoo ladan ayuu hadeerto wuxuu diyaar u yahay inuu rajada Turkiga soo celiyo oo uu muujiyo xanuunka in laga adkaa karo. si kastaba ha noqotee goorsi horeysana waxaa la sheegay oo warar kale sheegan in Ismaaciil uu yahay 96 jir. si kastaba noqotay tan waxa ay tusaale yar u noqotay baa la yiri in xanuunka qofkii ee ugu tala galayna uu ku dhimo karo, sidoo kalena ay jiri karaan dadku inay kasoo raystaan iyadoo fursada kasoo raysashada xanuunka iyo u dhimashada xanuunka mar walba ay kor u badan tahay ama kor jirto in xanuunka laga soo raysto oo mar walba taas oo ay tahay fursad aad iyo aad u weyn sida la rajeenayo. ayatullah dalkaasi Iran ayatullah Ali Khamenei waxa uu gorweeyay ogolaaday 1 bilyan oo lacagta yuurada ah maadaama dalkaasi lacag adag ahaan ay yuurada u isticmaalaan doolarkan ay qubeen. ayatullah Ali markaasi Khamenei waxa uu ku amray Xasan Rouhani in lacagtaasi loo isticmaalo ayuu yiri in lagu la tacaalo dhaqaalaha dalka iyo in la siiyo dadka danyarta ah ee shaqooyinka ka fadhiistay, iyadoo sidoo kalena 1 bilyan ee lacagta yuurada ah ay kor u qaadi doonto la tacaalista. markaasi arinta waxa laga soo saari doonaa lacagtaasi hantida qaranka waxa loo yaqaano ee markaasi iyadoo dalkaasi uu dad gaaraya 60,000 oo qof in ka badan u soo ritay halka uu dilay ku dhawaad 4,000 oo qofna uu nafta ka gooyay. dalkaasi ayaa dhibaatooyin xooggan oo dhinaca dhaqaalaha ku nuuriyay Mareykanku uu dhibaato ka haysata. intaan ku joojiyo amaanaha.